hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaaye halbowlaha lugtiyabaana go'an hana qafeedhaaye huwan maqashay ina biixiyo hawrta nagu taali waxaan leeyahay madaxweyne gudoomiyaha baanka dhexe ee London ku sugan ee lacagtan soo daabacaya waxaanu ka codsanaynaa inaad amar u dirtid oo uu dalka ku soo noqdo waxaana aad joojisid waxaan leeyahay madaxweyne you are playing with fire dabbaad faraha kula jirtaa dabkaas adiguna ha isku gubin dadweynaha iyo shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha ku gubin bismillahir rahmanir rahim dhammaan warbaahinta iyo shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta halkan isumaan soo taagin inaan siyaasadda arrimaha gudaha iyo tagaashaandhiga iyo difaaca qaranka dhaliilo isumaan soo taagin siyaasadda amuuraha gudaha hadday tahay amniga hadday tahay isku haynta bulshada iyo mas'uuliyadaheeda kale fara badan waxba ka oran maayo maanta oo taaban maayo difaaca qaranka xaaladda ciidankeena xuduudaheennii midna taaban maayo maxaa yeelay dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan wiil iyo waayeel way ka dharagsan yihiin marka in cid loo faahfaahiyo looma baahna waxaanse in yaroo guud mara ama korkaxaadina ka oranaya aan oran lahaa siyaasadda xukuumaddani mugdi iyo gudcur bay ku gudaysaa dalkeennii iyo dawladnimadeennii dhaawac weyn bay u geysatay waa siyaasad dib inoo celisay oo halgankii hayaankii iyo himiladii qarankan ku khamaartay waa siyaasad horumarkii dawladihii kala dambeeyay iyo dadaalkii shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland jar iyo haadaan ka riday hase yeeshee khalad kasta iyo wax kastoo dhaca waxa waajiba in toos loo wajaho waa siyaasad fashilkeedii mas'uuliyad qaadasho la'aan iyo dhuumasho ku soo ururtay qarankan wuxuu ilaahay ku manaystay dad iyo shacab goba shacabka xariirta ah maanta nabar weyn baa ku yaala oo way damqanayaan uma baahna maanta inaan runta qaawiyo uma baahna inaan ka qiiraysiiyo uma baahna inaan qalbigooda waran ku dhaqdhaqaajiyo uma baahna hiirtaanyaday qabaan inaan uur ku taalo iyo arami ugu daro uma baahna shacabweynuhu waxa socda iyo wixii dhacay way ka xun yihiin wixii ka dhacay maraaga iyo goojacade iyo gobolka Sool in madaxweynahoodii waji gabax dartii uu isi soo hortaagi kari waayay iyay dareensan yihiin annaguna dareenka waanu la qabnaa in mashaqadii dhacday guddi madax bannaan oo baadha loo saari waayay taana way ka xun yihiin oo dareenka bulshada waanu la qabnaa dhanka kale haddaad isbarbar dhigtid bilcakis baaritaan buu degdeg madaxweynuhu u qorsheeyey xubintii commissionka doorashada ee xisbiga wadani magacaabay waa ayaan darro in arrintii ugu cuslayd ee 32 sannadood qarankan gaadha inaanu far u taagin oo aan baaritaan madax bannaan lagu samaynin laakiin xubinta commissionka ee wadani
madaxweynuhu juhdi iyo dardar iyo degdeg uu uga hawlgelayo sidii uu ugu maleego wixii uu awalba maleegi jiray commissionku sidaanu ognahay caadi bay u wada shaqaynayeen ka hor go'aankii masiiriga ahaa ee dalkan kala dejiyay ee beelweynta habar jeclo waxaanu qabnaa madaxweynuhu waa khilaaf iyo muranu badheedh madaxweynuhu kama daalo oo waa luru badheedh waxaanu xusid mudan in baaritaanka wixii gobolka sool ka dhacay uu madaxweynaha bir kaga adag yahay laakiin xubinta commissionkee wadani uu degdeg ugu saaray guddi baarisa waxaan leeyahay madaxweyne haddii xubinta iyada commissionka ay kaar kugu hayso oo kugu taagan tahay annagana xuduudihii iyo soohdimihii dalka ee qaranka iyo midnimadii bulshada iyaa nagu taagan xaaladda ciidanka jamhuuriyadda somaliland iyo hoggaankiisa iyaa kaar nagu hayoo nagu taagan dhacdadii maraaga iyo gooja cadde iyo raggii bannaanka lagaga tegay iyaa kaar nagu haya oo nagu taagan waxaan leeyahay hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaaye hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaaye dadku iyo gabayga si khalada u turjubi hebelku ma aha faysal cabdi bootaan oo keliya hebelladu way badan yihiin faysaladuna way badan yihiin waa raggii goobaha lagu dilay waa raggii la dhaawacay waa raggii la qabtay waa raggii bannaanka iyo cidlada lagaga tegay weeyaan hebelladaasi marka waxaan leeyahay hebel iyo maraagaba baryaha waanu hibanaaye halbowlaha lugtiyabaana go'an hana qafeedhaaye huwan maqashay ina biixiyow hawrta nagu taalle huwan maqashay ina biixiyow hawrta nagu taalle hareertayda guutada fadhiday ama si haaneedka habeenkoo bartegay yaa ka raray ee dib uga heenseeyey haadka iyo yaa u wadhay haadka iyo yaa u wadhay dugaag hanadadaydii jawaabahaas ayaa loo baahan yahay su-aalaha jawaabahoodii in guddi madax bannaani ay baadho oo wixii halkaa ka dhacay ay soo saarto arrintu waxay u eg tahay laakiin arrintii maan berri iyo maan bilaal mahadhadiisii annaga iyo shacabka waxa aan sheegay baa kaar nagu haya oo nagu taagan madaxweynaheennana xubintii commissionka ee xisbiga wadani iyaa kaar ku haysoo ku taagan oo uu ku mashquulsan yahay hadal iyo murti guddi madax bannaan oo 25 August baadha yaa loo baahan yahay madaxweynuhu baaritaanka isagaa eedaysanaha koowaad ka ah sidaa darteed in isaga iyo xukuumaddiisu isbaadho waanu ka dadafaynaynaa maadaama ay xukuumadda fartu ku godan tahay oo ay eedaysane tahay annaga iyo shacabweynaha jamhuuriyadda Somalilandba aqbali mayno inuu madaxweynuhu dad uu isagu doonayo baaritaanka gacantiisa ku xusho taasi guddi runta soo saarta noqon mayso waxay noqonaysaa guddi dambabas ama guddi loo arko inay madaxweynaha la saayirayso sidaa daraaddeed taladayadii iyo baaqayagii aanu golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland u gudbinay waa halkiisii golaha
wakiiladu gaar ahaan guddida arrimaha guduhu ashkhaasta iyo xubnaha guddidaas ha soo jeediyaan madaxweynaha ha loo diro madaxweynuhuna ha saxeexo aqbali kari mayno madaxweyne isagu isbaadha oo dad uu doonayo iyo asxaabtiisa iyo dad la saayiraya arrintaa qaranka oo dhan saamaysay loo guro haddaan idhi arrimaha waan guud marayaa oo aanan hoos ugu dhaadhicin oo guud maray waxa isweydiin leh waxa maanta isoo taagay warbaahinta dalka waxa maanta isoo kay hortaagay ee isoo kiciyay baa isweydiin leh abwaan Soomaaliyeed baa wuxuu yidhi maantana shirka ay igu turtee kama tiraabeen maanta maan tiraabeen ee waxa ay soo kiciyay duruufta dhaqaale ee shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay soo kiciyay siyaasadda dhaqaale ee xukuumadda ee danaysiga iyo arxan darrada ku jirto waxa ay soo kiciyay culayska dhaqaale ee qoys kasta oo reer Soomaaliland iyo ganacsato kastaaba uu si shakhsi ah u dareensan yahay waxa ay soo kiciyay danyarta iyo masaakiinta xukuumaddani madaxa kaga taagan tahay ay iminkana la doonayo in lacag lagu dul daabaco dalkan iyo ummadani muddoba sarif barar iyo sicir barar bay la daalaadhacaysay iyadoo taasi jirto xukuumaddani lacag billions of Somaliland shilling iyay si qarsoodiya inay daabacdo hawsheeda ku jirtaa 2 milyan oo dollar oo wax yar la iyo lacagta lagu daabacayaa shilinka Somaliland ama lagu sameeynaya ay gaadhayso waad aragteen invoice-yadii waxaasi waa cashuurtii danyarta iyo hooyada bacadka fadhida ee tamaandhada iibinaysa sideedabana lacagta la iska daabacaa waa makaaniyaad jeebka muwaadanka loogu dhaco oo lagu xaalufiyo ugu dambayntana marka dadka la dhiijiyo ee wax walba qiimahoodu cirka isu shareeraan lacagtaasi waxay noqotaa warqad aan qiimo weyn lahayn oo way qiimo beeshaa lacagaha sidaa qarsoodiga ah loo daabacay ay dawladuhu u daabacaan ee aan dakhliga iyo hard currency-ga ku fadhiyin waa dhac iyo xatooyo shicib waana astaamaha lagu garto xukuumadaha xaaluftaaqa ah ee sii socda ee aan shacab weynahooda rajo iyo mustaqbal dambe ka rabin waxaad xukuumadaha lagu yaqaanaa dhulka iyo hantida maguurtada ah iyo markaa ay sii socdaan ay sii xaraashaan danyarta aan culayska qaadi karayna lacag bay ku dul daabacaan sida aynu ka dhareegsanahay lacagaha la iska daabacaa waxay sababaan in quutal daruuriga iyo maciishiyadu ama wax kasta oo la iibsadaa ay qaali garoobaan dhaqaale burburka ka yimaada bulshadaasuu jabiyaa dalalkana wuu dumiyaa hyper inflation baa la yiraahdaa dalal badan iyo lacagaha la daabacayaa xilliyada kala guurka ay galaafteen waxaan leeyahay madaxweyne you are playing with fire dabbaad faraha kula jirtaa dabkaas adiguna ha isku gubin dadweynaha iyo shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ha ku gubin
waxaan leeyahay madaxweyne guddoomiyaha baanka dhexe ee London ku sugan ee lacagtan soo daabacaya waxaanu ka codsanaynaa inaad amar u dirtid oo uu dalka ku soo noqdo waxaana aad joojisid ganacsatada jamhuuriyadda Somaliland ee waaweyn waxaan ku leeyahay haddii shacabku jabo oo dalku kaco idinkuna waad jabaysaan marka malaha idinku madaxweynuhu idin dhageystaaye si degdega madaxweynaha ugu taga oo u caqli celiya shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan farayaa aan ku leeyahay intay goor tahay aan xeedha iyo fandhaal kala dhicin arrintani daba la qabta hadhow yeelan maysee dareenkiina muujiya oo madaxweynaha u gudbiya oo warbaahinta ugu gudbiya oo social media-da u gudbiya oo hadduu intaaba saakimi waayo oo wax ku maqli waayo u taga wasaaradda arrimaha gudaha weydiista fasax aad banaanbaxiyo shucuurtiina aad ku muujinaysaan aad qabataan dalkan wax weyn iyo bishii iyo labadii bilood ee ugu dambeeyay gaadhay amni ahaan xasilooni ahaan iyo dhaqaale ahaan ma qaadi karo waxaan uu madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu ay maleegayaan lacagtan la daabacayo ee warqadaha ee la iska daabacayo aan waxba ku fadhiin waxaan leeyahay hadhowto meel laga soo noqdaa jiri maysee shacabweynaha meel aynu uga soo wada jeesano arrintaa madaxweynahana mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ku booriyeynaa inuu arrintaa dib uga noqdo oo uu ka joogsado annagu waxaanu u aragnaa sidaan u sheegay commissionku intaan go'aanka masiiriga ah ee beesha habar jeclo aanu soo bixin commissionku si wanaagsan bay u wada shaqaynayeen waxa aanu u aragnaa arrintani arrin laga soo unkay madaxtooyada inay tahay madaxweynaha in guddi madax bannaan uu u saaro arrintii gobolka Sool ka dhacdayna way ku adagtahay oo bir kaga adag in uu commissionerka wadani uu soo magacaabay daba galana way u fududahay marka shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyagu taa hay isweydiiyaan